بسم الله الرحمن الرحيم. عاوة بشا فبراير والله حين نسيق لنا صدحدي فبراير waxa aynu joognaa magaalada Samareeb waxaan rabaa halkan inaan ka soo jeediyo fariin ku saabsan shirkii madaxweynuhu iclaamiyay Samareeb in furitaankiisii iyo hawshiisii inaan halkan shacabka Soomaaliyeed la wadaago halka wax maraya intaanan taagelin horta waxaan rabaa inaan bahda saxaafadda oo runtii caawadan استنبه هاي وديارسنا إن أنو مهد عليو لما أنتي ومهد سنتين بهذا ورباهنته وحنا كلور ربا إن أنو مهد عليو وشعب كصوماليات نوش شاقو مدحدا قل مدوك وجوهر ريو مدحويني أحمد عبد الكاري قرقر مدحويني كحجين كيد لما قدوميها كلها برلمان كقعل يو اللي بعنا يو كلها وسيردو سدي قيمها لهيد نوسو دويين labadii maalmood ee aanu magaalada joognay waxa kale oo rabaa in aanu mahad celiyo shacabka reer Galmudug dhamaantood meel ay joogaanba gaar ahaan reer Samareeb oo xil gaar ah iska saaray wufuudan culus ee ka socota dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah ee maamul goboleedyada waa shirkii afraad ee magaaladan lagu qabto magaaladanna waxay astaan u tahay samaha suluxa iyo heshiiska ummadda Soomaaliyeed oo ku amaanaya reer Samareeb waxaan kala rabaa inaan u mahad celiyo madaxdii dalka ee gobolka Timi iyo state-ka oo ugu horeeyo madaxweynaha federaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble state-yadii kale ee soo horeeyay ee maalinta naga soo horeeyay Dorraadimi sida madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen madaxweynaha Hirshabeelle Guudlaawe iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir oo isaguna maanta na soo gaaray waxa kale oo runtii iyaguna maanta yimi madaxweynihii Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa kale oo isna galabta soo gaaray magaalada Samareeb madaxweynihii Puntland Saciid Cabdilaahi Deni intaasi waa warbixinta aan rabo inaan siiyo dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhammaan madaxda Timi hadday heer federaal tahay iyo hadday heer maamul goboleed tahay ba aad iyo aad u mahadsan ku talagalka shirku wuxuu ahaa inuu caawa furmo 6 maqribnimo adigu madaxda oo daalanayd iyo hawshood dib u dhacday bari subax inuu furmo shirkanna waxa aan ka filaynaa inuu noqdo ayidaad la ayidayo shirkii 17 Sebtembar xamar ku soo gabagaboobay ee lagu gaaray go'aamada doorashooyinka iyo horsocodka dalka bari subax oo kulay saxaafadda halkan wargelin ku siin doono haday gelinka hore suurtagal weydaan fiidka oo kale aan siin doono aanu jecelahay mar walba inay nala wadaagaan aanu la wadaagno hawluhu halka ay marayaan iyo shirarku si maadaama meel kastana laga soo weydiinayo halka shirki marayo inuu furmay waxyaabaha dhaqaaqay inaanu markasta dadweynaha meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba aanu ka qabtirno halka hawla inoo marayaan waxa weeye waa marxalad waxaynu joognaa kala guur ah oo dalkeenu doorasho u hinqanayo waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro shacabka Soomaaliyeed inay niyad sami ku seexdaan madaxdoodiiba halkan isugu wada timi waxa laga filayaana waa wax wanaagsan sidii shirarkii horeba looga filayay waxa laga yaabaa shirarkii Samareeb 1 Samareeb 2 inay ka adkaayeen kan caawa aynu rabno inuu noqdo Samareeb 4 aynu ka ambaqaadna halkan xaaladaas aad baa loo kala fogaa habka doorashada loo gelayo laakiin hadda waxaynu haysanaa heshiiskii 17 Sebtembar oo lagu go'aamiyay habraacyada iyo qaabka iyo nooca doorashadu noqonayo dhammaan waxyaabihii asaasiyaadka ah waxyaabaha farsamada ahna waxa lagu sii dhameystiray waliba heshiiskaasi wuxuu qiimo ku sii lahaa in labada aqal ee aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare ay ansixiyeen oo uu yahay arrin sharci ah xalka ama inta dhiman waxa lagu dhameystiri doonaa shirkeena inoo furmi doona bari subax hadba halka xal marayo
iyo horumarka la sameeyana waanu la wadaagi doonaa warbaahinta iyo ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Shirkuna sida aan idiin sheegay waxay ahayd inuu caawa furmo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa habeenkii labaad uu joogo. Runtii shirka uu ku baaqay uu isugu yeeray xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay ahayd in dalku hore u socdo, doorashadiina la qabto, lana dedejiyo doorashada oo ah asaaska dimuqraadiyadda dalka. runtii madaxweynuhu aad buu u mahadsan yahay. horeba geed fadhi buu ahaa, haddana waxaa muuqata inuu geed fadhi yahay oo uu rabo in dalka doorasho ka dhacdo. runtii intaasaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo kelmadahan kooban. madaxda kale ee aan caawa shirka ka soo qayb gelin waxaan rajaynayaa inay berri subax nagala soo qayb geli doonaan si shirku u dhaqaaqo. waa mahadsantihin.